Israa'iil weerar ba'an ayay la kulantay xalay saqda dhexe dhanka koonfurta waxa diyaarado aan duuliye lahayn uga garaacday Xuutiyiinta Yemen dhanka waqooyigana Hezbollah ayaa gantaalo culus ku dhufatay dalka Bolivia xiriirka diblomaasiyadeed ee Israa'iil way jartay Colombia iyo Chile safiiradoodu way kala baxeen Israa'iil waxay 6 gantaal ku dhufatay xarunta qaxootiga Jabaaliya ee Gaza 50 qof ayaa ku dhimatay 150 waa dhaawac Xuutiyiinta Yemen ayaa sheegtay in ay weerar diyaarad aan duuliye lahayn ku qaadeen magaalada Eilat ee koonfurta Israa'iil taasoo ay ugu argoorsanayaan Israa'iil dagaalka Gaza balse militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay soo rideen bartilmaameedyo ku soo dhawaaday meel ka baxsan hawada Israa'iil iyadoo xiisadda gobolka ay sare u kacday tan iyo dagaalka Israa'iil iyo Gaza Xuutiyiinta Yemen oo ay taageerto Iran ayaa si rasmi ah u galay dagaalka Israa'iil iyo Hamas Xuutiyiinta ayaa gudaha u galay dagaalka socda waxayna diyaarado aan duuliye lahayn iyo gantaalo ku garaaceen magaalada koonfurta Israa'iil oo ku taal badda cas Xuutiyiinta ayaa qaaday mas'uuliyadda kadib markii militariga Israa'iil ay soo rideen bartilmaameedyo badan oo hawada ah oo shilal kala duwan ka dhacay agagaarka badda cas Xuutiyiintu waxay sii wadi doonaan weerarada ka dhanka ah Israa'iil ilaa ay ka joogsanayaan gardarrada Israa'iil ayuu yiri afhayeenka militariga ee Xuutiyiinta Ilaahay oon kaashanayna ciidamadeena qalabka sida ayaa gantaalada balastiga ah iyo kuwa liidka diyaaradaha iyo kuwa aan duuliye lahayn oo aad u tiro badan ku garaacay goobo kala duwan oo ay cadawga Israa'iil laga sugnaayeen dhulka ay gumaysato ciidamada qalabka sida ee Yemen ayaa xaqiijinaya in howlgalkan uu yahay kii saddexaad ee lagu taageerayo walaalaheena ku dulman Falastiin waxay xaqiijinayaan in ay sii wadi doonaan inay qaadaan noocyo badan oo duqeymo ah oo ay la socdaan gantaalo iyo diyaarado aan duuliye lahayn ilaa inta ay ka joogsanayaan gardarrada Israa'iil tani waxay ahayd markii ugu horeysay tan iyo markii Israa'iil ay adeegsatay nidaamka difaaca hawada ee faallada tan iyo markii uu qarxay dagaalka Hamas dhanka kale la taliyaha amniga qaranka Israa'iil Zaji Hegnegbi ayaa sheegay in weerarada ka dhanka Israa'iil ay yihiin kuwa aan loo dul qaadan karin dhanka waqooyiga Israa'iil xal dab ayaa ka kacay Hezbollah iyo Israa'iil ayaa isdhaafsaday gantaalo culus kadib markii Hezbollah ay badashay qorshihii hore oo ay dagaalka ku soo gashay taasi oo ay ugu dhinteen 14 askari madaafiic culus ayaa ururada Hezbollah isticmaalayeen ugu yaraan 6 duqeymo ayaa lagu garaacay xerada qaxootiga ee Jabaaliya ee duleedka magaalada Gaza halkaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 50 qof ayna ku dhaawacmeen ilaa 150 qof sida ay sheegeen saraakiisha Hamas xerada qaxootiga ee Jabaaliya ayaa ah goobta hadda ugu bulshada badan balse ciidamada Israa'iil tilaabadooda ay u egtahay in ay gibi ahaan reer Falastiin awar ka dhigaan dawladda Bolivia ayaa xiriirka diblomaasiyadeed u jartay Israa'iil iyadoo ku eedeysay in ay dambiyo ka dhan ah aadanaha ay ka geysteen Gaza Chile iyo Colombia ayaa sidoo kale safiiradoodii u joogay Israa'iil kala baxay iyagoo dalaceeyay weerarka militariga Israa'iil ay ku qaaday Hamas Chile iyo Colombia ayaa kalsoonida kala laabtay dalka Israa'iil